السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود القصر وهذا مقالك عصب doodii hadalhayn ayaa ka dhalatay kadib markii odayaasha dhaqanka bulshada oromada ee booqanaya somalilan ay jeediyeen hadallo muujinaya inay ka tirsan yihiin qabiil soomaaliyeed ugaas dhaqameedka hogaaminaya wafdiga oo lagu tilmaamay inuu yahay gudoomiyaha guurtida oromada etoobiya ayaa sheegay in wada dhalashada iyo diintu ka wada dhexeeyaan wallow qaar badan oo ka mid ah qowmiyadda oromadu aysan muslim ahayn mid ka mid ah wafdiga oo afka Soomaaliga si fiican ugu hadlaya ayaa sheegay in oromada iyo beelaha Somaliland ay wada leeyihiin dhulka iyo dekedda isagoo si gaar ah u carabaabay dekedda Sayla oo la sheegayo in Ethiopia ay doonayso dekeddaasi dalalka geeska Afrika sida Ethiopia, Djibouti iyo Kenya waxaa wada dega qowmiyado badan oo ka mid yihiin Soomaalida iyo Oromada labadan qowmiyadood waxay kaga duwan yihiin qowmiyadaha kale ay dalalka wadaagaan inay leeyihiin dhowr waxyaabood oo isku soo dhaweynaya labadan qowmiyadood qowmiyadda oromadu maxay tahay yay tahay oromadu waa qowmiyad degta geeska afrika tiradooda guudna lagu qiyaasay ilaa iyo 40 milyan qiyaastii 25 milyan oo ka mid ah waxay ku nool yihiin dalka Itoobiya qowmiyaddani waa ku shitig u badan muslimiin ka sokow Itoobiya waxay qaar ka mid ah degaan Suudaan iyo Kenya waxay isugu jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato reer guuraa ah daraasadaha taariikhda afafku waxay tilmaamayaan inay qowmiyaddani ka soo jeedo harooyinka sida Jawbahir iyo Chamo oo ku wada yaala dalka Itoobiya waxay taariikhda afku qiyaasaysaa in halkan ay ku noolaayeen in ka badan 2000 oo sano qowmiyadaha Soomaalida, Oromada, Shandiile, Booraan iyo Gabra waxay ka wada tirsan yihiin kushitig oo ka mid ah magacyada lagu mideeyo jinsiyadaha iyagoo la eegayo waxyaabaha ay ka mid yihiin hidda-sahooda iyo taariikhdooda afafka oromada ee Soomaalida ayaa ku wada jira afafka la isku yiraahdo kushitig oo ka mid yihiin afafka qowmiyadaha aan kor ku soo xusay iyo kuwa kale oromadu ma Soomaaliba mise Soomaalida ayaa Oromo ah waxyaabaha ku saabsan wafdiga Hargeysa jooga iyo hadalladooda ee hadalhaynta dhalisay ayaa ka mid ah su'aasha aan sheegnay ee ahayd oromadu ma Soomaaliba mise Soomaalida ayaa Oromo ah siyaabo kala duwan ayayna dadka ugu falceliyeen haddaba taas aawadeed waxaan eegaynaa waxa ka jira sheekooyinka qaar ka hor burburkii Soomaaliya bulshada oromada ee Soomaaliya joogay oo qaarkood ahaa jabhad hubaysan ee la dagaalama Itoobiya waxaa loogu yeeri jiray Soomaali Aabo labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromo waxay degaan laba dhul oo aad u ballaaran dhinaca isku haya iyo meelaha dhulkaas ka galo oo ay wada degaan intaasi waxaa dheer inay jiraan sheegasho iyada oo marar badan la arko in qabiilo ka mid ah Oromada ama Soomaalida ay sheegtaan midka ay afkooda ku hadlaan mooyee kan kale tani waxay caddeyn u tahay suurtagalnimada in tusaale qoys Soomaali ah uu la dhaqmo Oromo sidaasna oo ku noqdo Oromo inkastoo ay og yihiin inay dhalashada ahaan yihiin Soomaali sidaas si la mid ah qoys Oromo ah oo la dhaqmay Soomaalida sidaasna uu ku noqday Soomaali inkastoo og yahay inay dhalasho ahaan uu yahay Oromo tusaalaha ugu fiican wafdiga hadda jooga magaalada Hargeysa oo sheegay inuu soo maray Kenya waxayna ku doodayaan inay yihiin qabiil Soomaali ah sida ay sheegayaan kaliya aan ku jirin Oromada ee sidoo kale ku dhex jira lana dhaqmay Booraanta iyo kuwa kale tusaalaha kale beesha sheeqaal waxaa jira qabiil Oromada la dhaqmay kuna hadla afka Oromada balse ku abtirsada isla halka ay sheeqaashu ku abtirsato ma beenin karno mana caddayn karno balse waxaa caddayn u tahay siday suurtagal u tahay in labada qowmiyadood Oromada iyo Soomaalida ay isku dhex milmaan waxaa sidoo kale jira sheekooyin ah qabiilo ka dhex abuurmay labada qowmiyadood oo isguursaday laakiin xaqiiqda taariikhda iyo sooyaalka labada bulsho waa inaysan midna ahayn tan kale si ay yihiin laba qowmiyadood oo siman isla markaasna hal meel ka soo farcamay haddii aan fiirino dhanka diinta qowmiyadda Oromadu waxay leedahay muslim iyo masiixiyiin labadaba hase yeeshee waxaa badan kuwa islaamka ah waxaana lagu qiyaasaa 55 ilaa iyo 60 inay yihiin muslimiin sunni ah Oromada muslimiinta ah waxay dhul ahaan isxigaan Soomaalida waana halka uu ka yimaado isdhexgalka labada qowmiyadood inkasta oo aynan qodob gaar ah ka dhigayn dhaqanka Soomaalida iyo Oromadu waxay isaga dhow yihiin dhaqan ahaan qowmiyadaha kale
waxay leeyihiin wax la yidhaahdo caabaqaate oo u dhigma ugaas ama suldaan. oromadu waa xoolo dhaqato sida soomaalida oo kale, walow dhanka beeraha ay soomaalidu kaga horeeyaan, waana reer guuraa kuwooda xoolaha dhaqa. haddii aan fiirno dhanka dhulka ama deegaanada, sida aan horeba soo xusnay, dhulka ay hadda soomaalidu degto iyo kan oromadu dhinac ayay isku hayaan, walow uusan u dhaxayn xad cad oo kala qaybiya, ayna dhacdo in marar qaar isu gudbaan si nabad ah ama si dagaal ahba. qodobada ama waxyaabaha mideeya soomaalida iyo oromadu uguna xasaasisan waa dhulka ama deegaanka, balse si aan sawir uga bixinno aan dib ugu laabano xoogoo taariikhi ah. qarnigii 16aad ilaa 14aad miilaadigii waxaa geeska afrika ka talin jiray boqortooyo islaami ahayd oo la yidhaahdo cadel. boqortooyadan waxaa xarun u ahayd magaalada harar oo hadda ku taalla gudaha dalka Itoobiya. maadaama ay ahayd boqortooyo islaami ah, waxaa ka dhaxaysay guud ahaan qowmiyadaha muslimiinta ah halkaas ku dhaqan iyo kuwa gadaalka yimidba. boqortooyadani waxay la dagaali jirtay marar badan oo ay dhulka kala qabsadeen midii xabashida oo ahayd boqortooyo masiixiyad ah. boqortooyadani waxaa hogaamin jiray marka laga tago shakhsiyaad aan asalkooda si fiican loo qeexin, madax Soomaali ah kada dhashay qaar ka mid ah qabiilada aan maanta Soomaalida u naqaan. magaaladan aan hadda sheegay waxaa dhinac walba hadda ka jira Oromo ama dhulka Oromada. sida ay dowladda Itoobiya diiwaan gelisay, oromada degta magaalada harar ee maanta waxay ka badan yihiin Soomaalida, xitaa qowmiyadihii Haraariga la oran jiray oo la sheegay inay asal ahaan degi jireen halkaasi xitaa saldanadii cadal ka hor. marka su'aasha maanta ayaa waxay tahay, Oromo miyaa Soomaali ah, Soomaali miyaa Oromo ah? oromadu iyo Soomaali xaggee walaalo ku yihiin? fadlan wixii fikirka hoos noo waraag. aad waa mahadsan daawadayaal.